قد عيد مدى قيقين وليهي كسما مقعقو بسنا كلا قد سنة كلا قوني ويو أنقو قشكي دالكاناي قاشاك حرركي قرقركي الله بدورا عليمو وكافين حدكتو قلتك سمدا وقالكا كوالا قرتاناي قد عيد مدى قيقين وليهي كسما مقعقو بسنا كلا قد سنة كلا قوني ويو أنقو قشكي دالكاناي قاشاك حرركي قرقركي الله بدورا عليمو وكافين kan waxaan isugu nimiday inaan marka hore aan kala qayb qaadano shacabkeena Soomaaliyeed ee muddo badan ama dhowr maalmood ku xayirnay halkan dhibaato jirto oo dhanka wadada ka jirto taas maxaan ku yiraahdaa waxay nagu qasabtay in la isku soo baxo oo ay ugu horeeyaan dadka isku soo baxay maxaan ku yiraahdaa dhaqanka oo ugu horeeyo ugaaska iyo maxaan ku yiraahdaa imaamkaba iyo madaxweynaha state-ka wada hadal badan kadib iyo gudoomiyaha gobolka oo halkaas kaabayay iyo saraakiishaba waxaa la go'aamiyay in la qaado isbaarooyinka ama checkpoint-yada yaalla meelaha qaarkood wixii oo maxaan ku yiraahdaa sharciyad dawladeed ku yaallo aan ahayn sidaas go'aankaas ayaana la isla qaatay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed gaar ahaan qaybta 12aad waa soo dhaweeyeen saraakiishana way soo dhaweysay sidaas ayaana maxaan ku yiraahdaa maalmahan aan howlahaas u galnay aadan ugu mahad celinayaa saraakiisha hawshan ka qayb qaadatay sida maxaan ku yiraahdaa Cornel Cismaan Xaadoole oo aad iyo aad hawl badan halkaan asagana uu qabtay iyo maxaan ku yiraahdaa Cornel Sanay oo taliyaha guutada afraad iyo saraakiisha kale oo halkaan joogta dhamaantood waxaan leeyahay waa saraakiil qiimo badan oo hawl badan la soo qabtay maamuladana maxaan ku yiraahdaa shaqo badan u qabtay maamulada waa ku wareejinay howlahoodii si maxaan ku yiraahdaa madmadowga jiray looga baxo maamulkana shaqadiisa uu madax banaanaado sida maxaan ku yiraahdaa maamulka degmada Warshiq sida maamulka degmada Balcad sida maamulka degmada Cadale gudoomiyaha gobolkana goobjoog ku ahay aadan ugu mahad celinaynaa waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed waxay la dagaalamayaan ama la dhibaatoonayaan cadowga argagixisada al-shabaab ma ugu dari karno dhibaato kale oo maxaan ku yiraahdaa burcadan la yiraahdo burcad bariyeedka oo banaanka joogta oo maxaan ku yiraahdaa shacabka Soomaaliyeed wadada u galaya waxay haystaan safarka ku dhibaateynaya ma ugu dari doono mana u dulqaado doono insha Allah waxaan si sharaf leh oo wanaagsan halkan uga salaamayaa sheekha degmada Warshiq oo aad iyo aad hawl badan halkan iyo talo badan naga siiyay waa ku mahadsan yahay sheekheynana waxaan leenahay Allah ku xafido dhammaanna waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed soo dhawaada hawluhu waa wili waa socdaan saraakiishana waxaan leenahay hawsha wili way socotaay ka qayb qaata sidaad haddaba uga qayb qaadateen aad mahadsantihiin gudoomiye waa idin mahad celinayaa sida wanaagsan aad maxaan ku yiraahdaa aad noogu soo dhaweyseen aniga saraakiisheedaba inaan hawsheedan kala qayb qalno waxaan mahad gaar ah u celinayaa oo aad ugu mahad celinayaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo madaxweynaha qaranka oo mar walba u taagan oo dhibrinta shacabkiisa Soomaaliyeed oo aad iyo aad uga damqaday shacabka halkan gaadiidkooda lagu xayiray ama amirtiisana aan hadda fulinayno oo wakiil looga ahaa taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo